xulbadu maxay daawo u tahay? Xulbadu waa daawo dabiici ah oo kor u qaadaysa awoodda dheefshiidka. Waxyaabaha la ogaaday waxaa ka mid ah xulbadu inay jirka ka caawiso inuu si sahlan u shiido cuntada. Haddii marka dheefshiidka aad ka dhiban tahay, xulbadu muhiim ayay kuu tahay. Sidoo kale xulbadu waxay yareysaa calool istaaga. Haddii caloosha ku fadhido, dadka ay calooshu fadhidana inta badan way u fiican tahay xulbadu. sidoo kale xulbadu waxay daaweysaa isla dheefshiidka ayaan ku jirnay gaaska xad dhaafka ah. Haddii gaas aad la dhiban tahay, xulbadu waa daawada ugu horeysa ee ku anfacaysa. xulbadu waxay hoos u dhigtaa sidoo kale heerka sokorta dhiigga. daraasado badan ayaa muujinaya in xulbadu ay gacan ka geysato xakameynta sokorta dhiigga, taasoo faa'iido weyn u leh dadka qaba cudurka macaanka diabetic. dadka diabetiga ah qaba cudurka macaanka, xulbadu muhiim ayay u tahay. xulbadu waxay sare u qaadaa nafaqeynta hooyada nuujinaysa. tan waa muhiim. waxaa laga yaabaa hadda inaad nuujinayso, haddii aadan hadda nuujinna maalin waa nuuji doontaa insha allah. dumarka nuujiya, hooyooyinka nuujiya caruurta, waxaa lagula taliyaa inay isticmaalaan xulbada. xulbada maxaa yeelay waxay kordhisaa caanaha naaska. xulbada waxay kordhisaa caanaha naaska, taasoo muhiim u ah koritaanka ilmaha. cunuga uu ka caanaha naaska hel badan yahay, wuu ka maskax fiican yahay, wuu ka jir fiican yahay, wuu ka caafimaad badan yahay. xulbadu waa daawo dabiici ah oo yareysa bararka. sifooyin lid ku ah bararka ama caabuqa ayaa xulbada ku jira. maadooyin lid ku ah bararka ayaa ku jira, waxayna kaa caawinaysaa dadka qaba xanuunada lafaha arthritis. dadka lafa xanuunka qaba, xulbadu muhiim ayay u tahay. inta badan Soomaalidu xulbada waxaa laga yaabaa inay waxyaabo kale ka aaminsan yihiin, laakiin inta aad ogtahay in ka badan ayay xulbadu daaweysaa. xulbadu waxay hagaajisaa caafimaadka wadnaha iyo xididada dhiigga. waxay hoos u dhigtaa kolestaroolka kiisa xun, waxayna kor u qaadaa dufanka kiisa wanaagsan. haddii kolestarool aad la dhiban tahay, waa muhiim xulbada inaad isticmaasho, sababtoo ah xulbadu waxay ka hortagtaa cudurrada wadnaha. cudurrada wadnaha inta badanna waxay ku yimaadaan xinjiraha dhiigga, ama dhiigga inuu xinjiroobo ama kolestaroolka ama dufanka inuu kugu bato. marka xulbadu waa daawada ugu horeysa ee loo isticmaalo kolestaroolka. marka laga hadlayo daawooyinka dabiiciga, xulbadu waxay sare u qaadaa rabitaanka galmada ama jamaaca. Soomaalidu tan aad bay u aaminsan yihiin. dadka inta badan xulbadu waxay sare u qaadaa heerka testosterone. marka testosteronekaagu uu wanaagsan yahay, caafimaadkiisa, waxaa badanaysa awoodda galmadaada ama jamaaca aad samaynayso. dumarka iyo ragga labadaba muhiim ayay u tahay xulbadu. labadaba rabitaankooda jamaaca ama dareenkooda kor ayay u qaadaa. xulbadu waxay caawisaa sidoo kale waxaa loo yaqaano miisaan dhimista. inta badan dadka miisaanka inay dhimaan ay ku adag tahay. sababta inta badan miisaanka inaad dhinta ay kugu adagtana waxaa waaye rabitaanka cuntada ayaa badan. xulbadu marka waxay samaynaysaa rabitaanka cuntada aad u qabto ayay yaraynaysaa. xulbada markaad isticmaasho, marka gaajo inay ku qabato ayaaba adkaanaysa. weliba soonkoo kale waa muhiim xulbada inaad isticmaasho. dadka sooma inta badan xulbadu muhiim ayay u tahay. waxay ka caawinaysaa dadka doonaya inay miisaanka dhimaan in miisaankoodu si fudud u dhaco, maadaama gaajo aysan qabanin. gaajo haddii aysan ku qabanin, waxaa imaanaysa inaadan cunto cunin. cunto markaadan cuninna miisaankaagu si fudud ayuu u dhacayaa. xulbadu waa daawo wax ku ool ah oo ka hortagta timaha daadanaya. timaha daadanaya, dad badan ayaa isticmaala xulbada si ay u xoojiyaan koritaanka timaha, sidoo kalena uga hortagaan daadashada timaha. xulbadu waxay nafaqaysaa jiridda hoose ee timaha. inta badan dadka timaha daata, cilada ugu weyn haysato waxaa waaye infectionno, ama waxa la yiraahdo agool ama bacteria. maqaarka qaybtiisa hoose ee tinta kasoo baxdo ayaa inta badan infectionno ku dhaca, ama maqaarkaas ayaa nafaqadii ku yaraanaysa oo dulduleelada ayaa xirmaya. marka dadka timaha daata, xulbadu si gaar ah ayay ugu fiican tahay. xulbadu waxay sidoo kale kor u qaadaa caafimaadka kelyaha. waxay siisaa awood ay isaga nadiifiyaan wasaqda.
awood ay isaga nadiifiyaan wasaqda. Caafimaadka kelyaha muhiim ayay u tahay. Caafimaadka kaadi mareenka muhiim ayay u tahay. Waxay ka hortagtaa infekshanada kaadi mareenka ku dhaca. Waxay ka hortagtaa dhagxaanta kelyaha ku samaysma. Haddii marka dhagax kelyaha lagaaga sheegay, haddii kaadi mareenka infection, haddii infectionka kugu soo laalaabto, haddii kelyaha shaqadooda ay ku yar tahay, waxaasoo dhan waxaa daawo u ah, daawo dabiici ah xulbada insha Allah. ilaah baa wax daaweey, laakiin waa wadadii loo marayay daawada. xulbadu waa daawo dabiici ah oo looga hortago hargabka iyo neefta. xulbadu waxaa ku jira maadooyin fayraska iyo bakteeriyada la dagaalama, kuwaasoo yareeya qufaca, neefta, sidoo kalena kor u qaada hawada neefta. xulbada maqaarka way u fiican tahay. waxaa la ogaaday in maqaarku uu daawo dabiiciya ay u tahay xulbadu. waxay yareysaa finankaas noqdaan kuwa wajiga, kuwa dhabarka, waxyaabo badan. waxay u fiican tahay xasaasiyadda, waxay u fiican tahay cuncunka, waxay u fiican tahay qalalka maqaarka. xulbadu waxay daawo u tahay xanuunka caadada. dumarka inta badan caadada la dhiban muhiim ayay u tahay. waxay yareynaysaa xanuunka caadada, waxay yareynaysaa xanuunka naasaha, waxay yareynaysaa xanuunka murqaha minka inta badan dumarka kaga dhaca. xulbadu waxay xoojisaa difaaca jirka. dadka inta badan xulbada isticmaala cudur inuu ku dhaco way adag tahay. sidoo kale xulbadu waxay qofka siisaa tamar. xulbada faa'iidadeeda intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. like saar muuqaalka si saaxiibo badan u gaaro.